ku soo dhawo Fan Academy haddaad nagu cusubtaa fadlan subscribe leh kadibna furo gambaleelka si muuqaal kasta aynu soo gelino kugu soo dhaco isla marka aynu soo gelino waad mahadsan tahay inta aynan hore u gelin barnaamijkeena haddii aad doonaysid inaad ku barato luqadda Englishka si online ah fadlan booqo website-keena fanacademy.com sidoo kale igala soo xiriir ciwaanada hoos ku xusan waad mahadsan tahay mar kale dunidan aynu ku noolnahay xilliga uu ka dambeeyo waxaa la gaarayaa horumar xagga tiknoolajiyada iyo waxbarashada. Xilliyadii hore waxbarashada ayaa loo raadsan jiray meelo dhaadheer oo masaafo ah. Haatan waxbarashadii ayaaba qaarad kale u soo jarayso kugu imaanayso sariirtaada dusheeda. Waxbarashada online-ka waxay muhiim u tahay dadka ayaga shaqeeyo laakiin aan awoodin inay xaadiraan fasallada waqtiga cariiri ku ah awgii. Hooyooyinka aan awoodin inay u baxaan iskuulada waxbarashada oo xanaaneeya carruurtooda laakiin awoodo iyagoo jikadooda ku jiro inay wax bartaan iyo dhammaan dadka xiiseeyo si online ah inay wax ku bartaan. Waxaa muhiim ah in uu qofka samaysto jadwal deedna uu ku dhegnaado jadwalkiisa. Sidoo kale waa inuu helaa dhammaan qalabkii u fududeyn lahaa waxbarashada online-ka sida internetka, printerka uu ku daawacan lahaa warqadaha casharada. Sidoo kale waa inuu helaa qofka computer, mobile ama tablet u kala socdaa casharadiisa. Haddii aad doonaysid inaad online wax ku baratid waxaad u baahan tahay qodobadan soo socdo. 1. Waa inaad heshaa goob waxbarasho gurigaada ama meel maktabad ah. Iskana ilaali carruurta iyo dadka kale aad leedahay way kaa qasayaan waxbarashadaada. Qodobka 2. Dejiso waqti aad gashid fasalka online-ka ah. U yeelo maalmo gaar ah oo aad qaadanaysid duruustaada. Samayso jadwal iyo waqti iyo maalmo gaar ku ah. Qodobka 3. Xilliga casharka uu socdo noqo arday foojigan lana socda macalinkiisa. Marka uu dhammaado fasalka dib u daawo casharada kadibna akhri notiska casharka. Sidoo kale hoos ka xariiq qaybaha kugu adkaaday fahankooda kadibna u gudbi barahaaga ama macalinkaaga adigoo ugu dirayo email ama aaladaha kale social media sida WhatsApp-ka iyo wixii la midka ah. Qodobka 4. Istijaabi nafsadaada. Qaado quiz ama test. Tijaabi awooddaada fahanka iyo dhanka casharada adigoo adeegsanaya quizka online-ka website-ka aad wax ka baranaysid iyo website-yada kale ee la midka ah. Qodobka 5. Ka fogow oo iska xir baraha bulshada sida Facebook-ga, WhatsApp-ka, email-ga iyo waxa la midka ah. Iska xadid dhammaan aaladahaas si aysan hakad kaaga gelin waxbarashadaada xilliga aad casharka qaadanaysid.